wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa tababar ku saabsan barashada dastuurka iyo wadaniyada u qabatay arday ka kala socday jaamacadaha kala duwan ee magaalada Burco iyo xubno iyaguna ka kala socday xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco. Tababarkan ayaa qayb ka ah dadaalada wasaaradda ee baridda bulshada dastuurka iyo wadaniyada, waxaana tababarkan furay isduwaha wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha ee gobolka Togdheer Mustafa Axmed Cali iyo agaasima waaxeedyada waaxaha dastuurka iyo qorsheynta Cabdirasaaq Yuusuf Jaamac, Maxamed Cabdixakiin iyo Cabdisalaam Faarax oo ka socday hay'adda UNDP waxaana ka warameen muhiimadda uu tababarkani leeyahay. ujeedka kulankeenan haddaan yar bayaamiyo waxa weeye barashada maadada wadaniyada la yiraahdo iyo wacyigelinta dastuurka. marka barnaamijyadaas oo ahaa barnaamijyo taxana ah socono doona horena u socday oo qaranka oo dhan laga qabto kuwii koowaadna aan ahayn, laakiin maanta aad nasiib yeelatay in loo qabto ardayda jaamacadaha qaar ka mid ah iyo aqoonyahanka gobolka Togdheer, ururada iyo waxgaradka bulshada ayuu daaran yahay barashadiisu oo waana hal maalin insha Allah taala. barashada dastuurku waa shay muhiim ah inaan baranno, oo dastuurku waa xeerka ama waa dastuurku waa waxa sharciga ugu sareeya ee dalku leeyahay ee lagu kala baxo ee lagu kala hago ammaanka iyo siyaasadda iyo wax walba kaabayaasha dhaqaalaha wax walba ay ku suntan yihiin. maadaama tiin dadka intii ugu indhargaradsaneed waxaanu garanay inaan maanta idin qabanno barnaamijkaas. maanta halkan waxaan u joognaa inaan faham guud ka yeelano dastuurka. waan ognahay sida la sheegay waa xeerka ugu sareeya dalka iyo waxyaabo ka aasaasan yahay, iyo sidoo kale wadaniyada oo iyaduna shay kale oo aad iyo aad u muhiim ah. muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan bulshadeena oo ama muwaadiniinteenu inay faham weyn u yeeshaan dastuurka, muwaadinimada iyo dawladnimada. waa shay runtii aad iyo aad u muhiim ah oo qof kastaba anfacaya. qofkii doodayna waxa weeyaan oo doonaya shay inuu ku hagaajiyana doodiisa iyo hagaajintiisu ay dariiq yeelanayso iyo daliil uu daliishado waxa uu doonayo sida ay tahay. sidoo kale dastuurku maadaama uu yahay sharciga inoo dhaxeeyana qofku waxa weeyaan wuxuu qofka kale ee muwaadinka ah uu dheer yahay uga faa'iideyn karaa wixii markaa uu isleeyahay waad uga faa'iideynaysaa ee ku habboon. marka runtii waa arrin aad iyo aad u muhiim ah. wasaaradduna muddo badan way waday, gobolkana maaha markii koowaad aan imaadno iyo markii labaad toona marar badan oo kale waanu nimi. kani saddex fur koowaad buu u noqonayaa insha Allah haddii ay ka dhigo bilaan soo socda insha Allah intan in ka ballaaran baan isku iman doonaa. idinkuna koowaad ka noqon doontaan. sala socotaan waxaa la sameeyay xaruntaas oo leedahay xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyada oo dufcaddii ugu horeysay bay ka baxday bishii May. imika laftigeeda maadaama ay caasimadda ku koobantahay waxaan rajaynaynaa insha Allah in halkan ay ka bilaabanto oo halkan laga bilaabo oo ay noqoto mid guud ahaan dalka gaadha. marka insha Allah dhawaan iyadana halkan qaybta la keeno in ay idinku noqotaan insha Allah qaybta ugu horeysay ka faa'iideysata. wasaaraddu qaranka waxay uga wakiil tahay buugga aynu hor yaalla oo dastuurkii ah. marka waxa muhiim noqotay in qofku dastuurku waxa weeye waa sharciga waddanka ugu sareeya sida aynu ogsoonahay. iyadoo la leeyahay sharciga waddanka ugu sareeya haddii aynaan garanayn waxay noqotay wax yar adag bay noqotay oo aan suurtagal ahayn. wasaaraddu waxay ku dadaashay in qof kasta si kasta ay ku gaarsiin karto inay ku gaarsiiso. qofku si kasta uu ku heli karo barashadiisa uu heli karaa. maanta waa loo fududeeyay, tanna waa qayb ka mid ah. sidoo kale xarunta uu ka dhawaajiyay agaasimuhu waxay noqotay iyana bal ciddii aan u suurtagelin siyaabaha wasaaraddu ay u gudbiso in iyana lagu baro iyadu si caadi oo jaamacado kale oo casharaa lagu barto ayay wasaaraddu samaysay. tababarkan waxa uu ku saabsan yahay wadaniyada, ahmiyadda ay leedahay wadaniyada iyo dastuurka, taas oo wasaaraddu ugu xil saartay qaranka. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka oo aan wada shaqayn ka leenahay dhinaca horumarinta dastuurka iyo shuruucda dalka. haddana hay'adda UNDP nahay aan wada shaqayn kala leenahay. wada shaqaynta aan la leenahay wasaaradda xiriirka golayaasha waa mid joogto ah oo ka mid ah mashruuca Rule of Law-ga. waxaan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay u soo diyaariyeen tababarkan
manaha tababarkani kii ugu horreeyey ee aanu wada qabanno insha allahu mana noqon doono kii ugu horreeyey ee kii ugu dambeeyey waxaanu qaban doonnaa qaar kale oo fara badan waxaana u rajaynaynaa ka qaybgalayaasha inay ka faa'iidaystaan oo ay wax ka bartaan waddaniyadda iyo dastuurka taasoo mid cid walba anfacda oo dalkana u horseedi karta kala dambayn iyo nidaam wanaagsan dhinaca kale isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka togdheer cabdikariin muuraad oo isna halkaasi ka hadlay ayaa wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka somalilan ku ammaanay gaadhsiinta qaybaha kala duwan ee bulshada barida dastuurka waddaniyaddu waa mid aynu ku faanno oo inugu abuuran dastuurkuna waa waxyaabaha lagu kala dambeeyo dowladnimadu inugu dhisan tahay waxaanu rajaynaynaa inaynu farriinqaadayaal noqonno oo aynu fulinno oo aynu fahanno oo aynu ku dhaqno dadkana gaadhsiinno waddaniyadda iyo dastuurkeennu waxay yihiin iyo heerka ay gaadhsan yihiin jaamac salebaan cumar garhka bulsha t v magaalada burco dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto blay store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga iidahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland